السلام عليكم كسودة هذا كسمة أكاديمي وحويان معلم أحمد ويدين دقي دونا عشرة كسابسان رمضان words رمضان words. How many words do you know? How many words do you know? وكدغان إمسي إري أيا تقانا وكسابسان رمضان words وحويان إري يدا رمضان تا أين استعمالنا عاوحن براندونا dhowr erey oo ka mid ah ereyada ramadaanta aynu isticmaalno. ereygeena koowaad waxa weeyaan son oo noqonaysa fast ama fasting oo ing lagu daro halkan. fast sidoo kale waxay macne kala yeelan kartaa oo degdeg bay noqon kartaa, laakiin marka ing la raaciyo ama kolbo inta badan ereyada waxa kala saara sentence-ka lagu isticmaalay. marka son ayaa halkan ugu jirtaa. ereygeena labaad waxa weeyaan afur oo ah qofku maanta gidi markuu soo soomanaa afurka uu dhamaysto soonka wuxuu sameeyaa timir iyo saambuuse, qofku wixii helo ayuu cunaa, marka uu afurayaa ayaan idhaahnaa. marka waxay noqonaysaa breakfast. ereygeena ku xiga ereygaasi waxa weeyaan suxuur oo inta badan waqtiyada habeenkii waqtiga dambe loo kaco. waxaa noqonaysaa English pre-dawn meal. ereyga ku xiga waxa weeyaan salaad, waa prayer. dhawaaqa u fiirsada. prayer waxa kale oo ay noqon kartaa salaada ama ducada ayaa la odhan karaa prayer. ereyga ku xiga waxa weeyaan caday oo ah toothbrush. dhawaaqa u fiirsada, ka waxaa lagu dhawaaqayaa toothbrush. waxaa kaloo carabtu ay tidhaahdaa miswaak, laakiin waxa weeyaan caday oo dhami waxa weeyaan toothbrush. ereyga ku xiga waxa weeyaan seko oo noqonaysa English charity. ereygeena ku xiga waxa weeyaan zambuse oo noqonaya zambuza. ereyga inoogu xiga waxa weeyaan quraac oo inta badan dadka qaar ay samaystaan. waxaa la odhanayaa dough. ereyga ku xiga waxa weeyaan timir. dates micno kalena way yeelan kartaa. waxay noqon kartaa taariikhda, sidoo kale waxay noqon kartaa marka laba qof oo lab iyo dhidigii ay ku kulmaan maqaaxi ballan ay lahaayeen, ayoo kale ayay noqonaysaa. waayahay ereyga labada erey kuni waa laba erey. marka waxaa weeyaan taqabbal allah oo inta badan aynu isnidhaahno ramadaanta dadka acmaasha badan ay sameynayaan in ilaahay naga aqbalo. English waxaad ku odhanaysaa my God accept your fasting or prayers. My God accept your fasting or prayers. ereygeena ku xiga waxa weeyaan ciid mubaarak baynu isnidhaahnaa marka ciidda gaadho ama dhowrka cisho ee ka hadhan ciidda. waxay noqonaysaa blessed eid. okay, hore aynuga soconaynaa. marka waxaan soo gaadhnay qaybtii aad idinku kasoo jawaabi lahaydeen. qaybtan idinkaan idinka tegaynaa. waxaad ku noqonayso ereyga sujuud ayaad soo sheegaysaan. sidoo kale waxaad soo sheegaysaan weysaysi, waxaa English lagu yidhaahdo, iyo sidoo kale eedaan ama adimid waxa English ay ku noqonayso. waxaad nagu soo jawaabi doontaan comments-ka, message noo soo dira, barahayaga bulshada noogu soo jawaaba.
marka insha Allah waxaan qaadan doonaa arday cusub oo ku dhigan doonta Englishka online 5 May waxaad nagala soo xiriiri doontaan nambaradayada xagan ku yaala waxaanu idin diyaarinay macallimiin tayo leh manhaj tayo leh English kan bixinayna waxa weeyaan English halka ugu hooseysa qof aan English hore u soo baran loogu talagalay ilaa dhexdhexaad iyo dhamaystir waxay idin